السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان إذن سلامي صاحبة شرفت له موقالك كان كهرية وحان كسو تباحني موقالك صوص عضا أو صوب سلام دون إنان كشريح دون قيبت اللباد يصير له استعمال لور ثان أنا وبوقان دون وبسيل لما سو دقي دون هدي أنا عشريه رسول داوان موقالك مفهم يسيد فضلا لابو صوت داو موقالك كان كهرية هذا وحان وبوقان دون وبسيل وحان كودك دون وبسيل كا ديسكريبشن كا halkaas ayaa ka boqon doontaa. ugu horeyntii waxaan soo kacsan doonaa Google Chrome. halkan waxaan ku qori doonaa Mixkit. markaan ku qorno waxaan dhahaynaa enter. kan u horeeya ee ku qorantay Mixkit ayaan ku dhufanaynaa laba jeer ayaan click siinaynaa. markaan laba jeer click siino saan ayuu nagu soo bixi doonaa. haddaba website-kani waxyaabaha ku jira aad u fara badan yihiin. waxaana ka heli karnaa video, muuqaalad, music, templateyo diyaarsan iyo waxyaabo aad u fara badan. midka u baahan tahay halka ayaa ku dhufaysaa, halka ayaana kala digaysaa. waa website-ka ugu fiican oo anigu aan isticmaalo. hadda waxaan doonaynaa inaan meeshan ka raadsano templateyo. waxaana doonaynaa lower third. saa markuu nagu soo baxo halkan hoose ayaan imaanaynaa meesha ugu hooseysa. halkan waxaa ku qoran Premiere Pro. logo u baahan tahay, lower third u baahan tahay, upper u baahan tahay, kuwana u baahan midka hadba u baahan tahay halkan ayaa ka tixraacaysaa. hadda anu maanta cashirkan wuxuu ku saabsan yahay lower thirds. kaas ayaan dooranaynaa anagoo kaga jirna Adobe Premiere. saa markuu ugu soo baxo midkii aad doonto ayaa dooranaysaa. kuwan hoos ka muuqda kuwani waa lacag, balse kuwan kor ka muuqda waa free oo midkii aad doonto ayaa degsanaysaa. tusaale hadda waxaan doonayaa inaan degsado midkan oo kale ayaan rabaa inaan degsado. kan xoogaa ma qurxoona. waxaan ku dhufanayaa labo saan u sii raadsado kuwa kale. kan ayaan tijaabin doonaa. asaga ayaan click ku siinaynaa muuqaalka saan u daawano iskagana tijaabino. marka hore bal aan daarno. hadhow saasuu noqon doonaa. template-kan waxaan ku dhufanaynaa download free template. hadda waa soo degi doonaa oo waka ah. waqti aad u dheer qaadan maayo. waa hadduu kugu xiriirsan yahay kombiyuutarkaagu shabakad aad u fiican. hadda waa uu soo degay. waxaan ka dooranaynaa halkan anagoo ku dhufan doona folder ku jira dulka show in folder. itus folder ku jiro halkan ayuu soo dhigay. waan soo koobiyeynaynaa ama cut baan soo siinaynaa. waxaan soo dhiganaynaa meel kamid ah timeline-ka. waxaan ku koobiyeynaynaa halkan ayaan kusoo koobiyeynaynaa anagoo dhahayna
capacity. hadda halkaas noo yaala saan uga saarno waxaan dhahaynaa extract file. okay hadda waa kan halkaas noo yaala waxaan soo kacsanaynaa Adobe Premiere. haddaba taa markuu noogu soo baxo saaxiibka qiimaha badanow waxaan tagaynaa graphics. saa markuu noogu soo baxo graphics waxaan doonaynaa hadeer in aan soo gashano template-kii aan soo degsanay ama lower third-kii hadda aan soo degsanay. halkaan ay ku qoran tahay calaamada balaaska ah ayaa waxyaabaha aad soo degsatay oo lower third-ka ah ama waxyaabaha la halmaana oo aad doonaysa inaad ku isticmaasho Adobe Premiere Pro aad soo degsatay marka aad doonaysa inaad ku soo xariisto Adobe Premiere Pro. halkaan ayaa la taabtaa, click ayaan siinayaa. wuxuu leeyahay doono meeshii folder-ka uu kaga jiray. halkaan ayuu ku jiray, kan ayaan furayaa. waa kan oo halkaas markuu saa igu soo baxo oo aan click siiyo waxaan oranayaa open. saas ku soo gala. saa u jeedidba oo soo gala halkaan, balse waa inaan raadiyo oo kuwa badan ayaa ku jira meesha. waxaan dhan oo waxaan ku soo xariistay meesha oo aan la soo degay. kuwaanina waa kuwii default-ga ahaa oo lagu keenay. mararka qaar waxaa dhici karta inaad weydidba maadaama meeshu ay aad u badan tahay. haddaba kii waan helnay. muuqaalkan ayaan ku tijaabinaynaa. hadda waa kan aanu si fiican u hubino inuu asagu yahay in kale. waa markuu ku jiray website-ka aan soo dhiganaynay. haddana wuxuu ku jiraa Adobe Premiere Pro. wuxuuna siinayaa dhowr second suu bahalku soo kiciyo. haddii aan hore isticmaali jirin saan ku oran doonaa dhammaantood, balse haddii hal mar aad isticmaasho hadhow si orod ah ayuu ku soo qaban doonaa haddii ay buuxaale ka noqdo. xoogaa culays ayaa ku jira. halkaan ayaan waxaan ka dhigayaa 4 si uu fududaado. haddii aan magaca inaan ka bedelo halkaan ayaan click siinaya. waxaan ku qorayaa Asad Ahmed oo ah saaxiibkiina inaan la hadlayo. waxaan leeyahay okay. muuqaalkan aan ka saaro meesha. kan kalena farta aan ka bedelo. waxaan leeyahay maalin wacan. haddaba qaabkaas ayaa loo farsameeyaa. haddii aad u baahan tahay saa u jeedaanba waxaa ku qoran wixii hadda aan ku soo qornay. xogaa Adobe-ha ayaa caawa aad u culus marka farta in soo bixin taasaa keentay, balse waana ku qornay oo wakaa. Asad Ahmed iyo maalin wacan. hadda aan soo bilaabo
marka ku jira website-kana waa kan oo halkan ayuu si nadiif uga muuqanayaa. qaabkaas ayaa loo isticmaalaa markii lower third aad isticmaalayso. hadda mid kale aan soo gelay oo aan horey usoo degsaday, haddii halkan u hooseysa aan imaado, kuwa aadka u isticmaalo waxaa ka mid ah kan Andaro, kuwa aadka u isticmaala kuwaana ka mid ah. saa magaca u badashay falaarta dalgoynaysa waxaa leedahay aqoon. halkan waxaa leedahay hoose Asad Ahmed, aan waxaa leedahay kulanso. inta hoose waxaa leedahay subscribe dhac ka sii. bas halkaana waa kuwii hore, farta kaba bedel halkaan. sidoo kale haddii aad u baahan tahay inaad mid kale tijaabiso, kor baad u bixin, halkaasaa ku dhufan midkii aad doonto ayaad tijaabinaysaa. tusaale kanoo kale ayaan soo qabanaa, intaan keenaa scalekan xoogaa ka yareyna, inta kale keena waa daara dhig. kan waa mid yara. saaxiibka qiimaha badan ma jecla muuqaalka inuu dheeraado. haddaba intaan ayaan kusoo koobaynaa wixii su'aalana oo qabtidna Telegramka ayaa ugu soo waagi kartaa. aad baan kaaga mahad celinaya daawashadaada. mar kasta ahow guuleyste.